موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn dacalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation oo mar walba aad ku kulantaan stuudiyaha shanaad ee qaaradda Yurub madaxweyne Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur madaxweynaha Jamhuuriyadda Barakaysan ee Maryland kiiskiisii ayaan daqiiqadaha hawada aan ku wada jirno wax idin kaga taataaban doonaa walaalayaal sida aan horeyba idinkugu sheegnay haddaan nahay SMC 8 bisha waxaa la sugayay Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in magaalada Muqdisho ay ka soo degaan isla markaana arrinta madaxweyne Mukhtaar Robow sii deyntiisii in la sii amba qaado madaxweyne Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur sida aan awal idiin sheegnay bishan hadda aan ku jirno ee 7-11keeda in go'aano fiican ay ka soo baxaan haddaan wax isbedelin villa Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadii jiray sidaasay ahayd Soomaaliya Abdicasiis Laftagareen maanta inuu soo gaaro dalka Soomaaliya ayaa la sugayay wali ma uusan soo gaadhin maantana waa 7 Maxamed Mursal isaguna waxaa la sugayaa in 8 bisha uu soo gaaro laakiin waxay u badan tahay in Britole uu soo galo magaalada Muqdisho inkastoo confirm dhammaystiran aan la siinin imaanshaha Maxamed Mursal magaalada Muqdisho Jamhuuriyadda Maryland maalinta bariya laakiin isku soo wada duub Abdicasiis iyo Maxamed Mursal labadaba in lala hadlay si gaar ah Abdicasiis Laftagareen in uu macnaheedu yiri wixii jaamac uu gooyo uu sameeyo waa ku qanacsanahay wasiirka cadaaladda Maxamed Cabdillaahi Farmaajo keligii taliyaha villa Soomaaliya ee u dhashay reer dalal reer diini caabudu waa ka soo jeeda ee sida daarood villa Soomaaliya fadhiya maalintii shalay ahayd wuxuu u yeeray wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Nuur Jaamac oo u dhashay raxaweyn qowmiyadda Maryland iyo waliba xitaa wuxuu u yeeray oo la jiray wasiir dawlaha oo qaafta iyo diinta lagu magacaabo Maxamuud Macalin Yaxye ayuu wacay villa Soomaaliya ka wacay Farmaajo waxa uu ku yiri mas'uuliyiintaasi Jaamac adiga iyo Maxamuud Macalin Yaxye oo maanta digil iyo mirifle ay soo wakiisheen siyaasiyiintooda ileen xildhibaanadii baryahan oo dhan dhaqdhaqaaqa waday waxay wakiisheen arrinta Mukhtaar Robow Jaamac iyo Maxamuud Macalin Yaxye ayay u wakiisheen Farmaajo wuxuu yiri Mukhtaar Robow waa uu diiday inuu dibadda aado madaxweynaha Maryland inuu dibadda aado waa uu diiday dhimashan ka xigaa buu yiri Farmaajo ayaa ereygaasi dhahaya sidaasi awgeed
doorashadan inta aan la qaban ka hor mukhtaar robow waa in magaalada muqdisho uu firaaqeeyaa oo xabsi uusan ku jirin oo xabsiga laga saaraa isla markaana la geeyaa gobollada markaas kadib doorashadu ay bilaabataa arrinkaasi ka soo taliya meel iga geeya meel isku soo raaca cabduqaadir nuur jaamac awalba sidaan idiin sheegnay daraad life aan soo galnay waajid ha la ii geeyuu yidhi isagu inuu tago madaxweyne mukhtaar robow cali abuumansuur dhulkiisii bakool inuu tago ama baay uu tago siiba bakool ayuu ku faraxsan yahay kuna qanacsan yahay sheekh mukhtaar isaguna inuu bakool tago ayuu aad ugu qanacsan yahay isagoo nabadoon ah cabduqaadir nuur jaamac iyo maxamuud macalin yaxye way ka soo baxeen maxamed cabdillaahi farmaajo daraad markii live-ka aan ku kulmaynay shalay ma ahane daraad markii live-ka aan u kulmaynay kadib jaamac 2 jeer ayuu la kulmay uu u tegay madaxweyne mukhtaar robow cali abuumansuur maadaama uu yahay mashiinka dhaqaajiya oo macnihii u kala dab qaadaya qaybaha kala duwan ee isherdinaya siyaasiyiinta iyo villa soomaaliya iyo madaxweyne mukhtaar robow hadda aan idinla hadlayno jaamac wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliyeed isaga iyo safiirka turkiga ma aysan kala kicin fadhi bay leeyihiin caawa maantana fadhi bay lahaayeen ku saabsiisan arrinta madaxweyne mukhtaar robow cali abuumansuur sidoo kale waxaa magaalada baydhabo horaan looga yeeray isla markaana diyaarad la soo saaray malaaq cadow oo ah malaaqa jilibka uu ka dhashay madaxweyne mukhtaar robow cali abuumansuur oo inta madaxweyne mukhtaar robow arrintan macnihii sii dayntiisii aysan dhammaan muqdisho aanu ka tegi doonin haddii malaga uusan haleelin sidoo kale waxaa magaalada muqdisho ka yimaaday ee baydhabo ka yimaaday wasiirka uu qaaftay arrimaha diinta maamulka magaalada baydhabo ee reedow lagu magacaabo sidkay nin la yidhaahdo shariif sidkay oo magaciise uu yahay saalax sidkay aabihiisii la dhihi jiray sidkay reer baydhabo caan ah isla markaana madaxweyne mukhtaar robow cali abuumansuur iyo aabihii wasiirkan sidkay la leeyahay aabihii sidkay ay isku waxbarasho ahaayeen aadna ugu ololeynaya madaxweyne mukhtaar robow inuu xoriyadiisa helo isagana magaalada muqdisho ayuu hadda ku sugan yahay waxaana wacay wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliyeed cabdicasiis laftagareen waxa uu yidhi haddii aan maqanahay iyo haddii aan joogaba cabdiqaadir nuur jaamac arrinta sii daynta mukhtaar robow sida u maareeyo 100% waan ku qanacsanahay waana ku gowracanahay waa ku kalsoonahay cabdiqaadir waxaan ognahay in ma arkayse uu la saaxiib yahay xitaa cabdicasiis laftagareen adeerkiisii lagu magacaabo generaal maqaayadda ama taliya shub oo taliyaha asluubta ciidamada federaalka soomaaliyeed ee mayga iyo maxaaga ah isla taliya shub haddaan ku noqonno isagana wuxuu yidhi war ninkan mukhtaar robow meel aan ka marna ayaan weynay adduunyadii oo dhan mukhtaar robow jiiro kasta waddo kasta mukhtaar robow ayaana la leeyahay marka wuxuu yidhi mukhtaar robow allihiin alle hadduu yahay jaamacow mukhtaar robow naga meeleeya mukhtaar robow macnihi meel naga geeya waa ka neefsan weynay waan ka socon weynay macnihi xafiis walboo aan tagno waddo walboo aan marno idaacad walboo aan fiirino robow marka sidaasi awgeed macnihii taliya mahad taliya shub isagana wuxuu leeyahay jaamacow robow mukhtaar robow meel naga geeya madaxweyne mukhtaar robow sida saadaashu ay tahay horeyna aan idinkugu sheegnay 99% dibadda inuu aado uma badna haddaan la khasbin waxaan idiin sheegnay in caano uu dhammo buul ku yaalla dhulka mayland in uu salaatuleyl ku tukado caanana uu ku dhammo ayuu ka jecel yahay in dibadda la geeyo daaro qurux badan iyo villooyin la seexiyo taasoo ka dhigan geeridu waqtiga qaar ka wanaagsan noloshuye wiilashuu gumaystuhu hilibkoodu waraybuu wadnahayagu tabayaan waayeel gaboobiyo intuu waaxid nool yahay ama gabar uu wadaad dhalay wacan aad ii aroostaan wahaab kaa isaarani
wanaaga iyo raaxada wax ku tagaaya ma ahan buu leeyahay mukhtaar robow wax ku tagaaya ma ahan dibad bilooyin lacago macno badan ima samaynayaan dhulkayga inaan joogo oo caano aan ka dhamaan ku tukado taasaa iga wanaagsan buu leeyahay adduunya waxay tahay male hadday qiimo leedahayna macnihii ilaahay agtii garab kaneeco hadday ku qiimo tahay ilaahay agtii gaal koob biyaha kama ka badeen marka sidaasi awgeed walaalayaal maalinta berri ah 10 subaxnimo waxaa loo ballansan yahay madaxweyne mukhtaar robow fadhigiisii maxamed cabdillaahi farmaajo cabdiqaadir nuur jaamac wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliyeed wasiiro dowlaha awqaafta iyo arrimaha diinta iyo inta la halmaala oo macnihii talagooyayaasha ah arrintan dabada dheeraatay sii daynta madaxweyne mukhtaar robow iyo afduubkiisii maalinta berri ah waxaa weeye waa maalin weyn tomorrow is a great day haddaan wax isbedelin waayo tomorrow is a great day for Mayland and for their detained president mukhtaar robow marka ducadu waa xaggiini haddii ilaahay uu ka raali noqdo haddii dibindaabyo kale aanay imaanin weliba waxaa la rajaynayaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in uu ka soo gaaro kulankaasi ayaa la rajaynayaa oo la isku hayo caawu soo baxaya iyo berriyu soo baxaya 8 bisha inuu dig soo yiraahdaa la sugaya isaga iyo lafta gareen xitaa haddii maxamed mursal uusan imaanin maadaama qabiilkiisana ay si gooniya ula hadleen waayahan oo dhan war ceeb baana dul taagan sheekh mukhtaar robow adigii oo ugu weynaa inaad macnihii aad ku fariisato kiiskiisii mursalow nama qabato maadaama doodo badan ay jireen waxaa suuragal ah maxamed mursal warqadda uu saxiixayo inuu email kusoo diro ama ma arkayse wakaaladda uu saarto cabdiqaadir nuur jaamac bay u badan tahay lafta gareen iyo waxaa dhuun gashay ahaa maxamed mursal dadkiisa macnihii culays saaray qowmiyadda Mayland gaar ahaan jufada uu ka dhashay cabdicasiis lafta gareenna xamar intuusan ka teginaaba laga dhameeyey war sheeg haddaa wax ka qabtid war dhibaata kuma geysanayo mukhtaar robow wuxuu yidhi waxba kama qabo jaamac wuxuu sameeyo waa ku go-anahay waxba kama qabuu yidhi marka ilaahay ha fududeeyo qofka muslimka ah waxaa weeye ducadiisii waa hubka ugu badan uu leeyahay waa ducada waay marka aan ducaysano maalinta berri toole ah waxaa weeye kulan weynaa jira kulankaasi kadib 11 macnihii iyaduna kulankii ugu weynaa kalaa la sii sugayaa laakiin berri toole haddaan wax isbedelin waxaa weeye lafagur xaqiiqada ku fadhiya ayaa magaalada muqdisho 10 subaxnimo la sugaya rooblena mar hore banaanka isdhigay wuxuu yiri ninkan sabab loo hayaba ma jirto duurkiisa ha galo meesha uu raba ha ka bariiseeyo ummadda Soomaaliyeed buu la mid yahay hogaamiyaashaasi Soomaaliyeed nadiifku la mid yahay ninkan hala sii daayo rooble isagu mowqifkiisa meeshaas uu taagan yahay waxa loo xiriirnaa digil iyo miriflay ahaayeen ay ugu weeyeen maxamed mursal iyo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maxaan kuu qariyay marka propaganda ku dar iyo ka dhin ii dheh iyadoonan ahayn marka duca nagu habboon sujuudda aan ugu duceyno fadhiga aan ugu duceyno shaqooyinka aan ugu duceyno aan isu duceyno dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay takaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibay la isma siinay haddii muuqaalka xiga ka horna la kala qaato ballantanadu waxaa weeye idam alle jannatul firdowsa garsoro dulmanaha wisho ruuxi damca xaqin u dado inuu sii dambaabiyo daal kororsi mooye
siday diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libayste daacad kama libayste daa'im baa garsooro dulmanaha u hesho ruuxii damcaa xaq inuu dado inuu sii dambaabiyo daal kororsi mooye siday diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libayste daacad kama libayste ujeedada waxay doodina la tahay daarihii laysdul saariyo daabkii dhaxyiil aaway dabaqadii sare daabkii dhaxyiil aaway dabaqadii sare ujeedada waxay doodina la tahay daarihii laysdul saariyo daabkii dhaxyiil aaway dabaqadii sare daabkii dhaxyiil aaway dabaqadii sare doolarkii la gurayo aaway daraja boobkii dusha layska buuxsaday laysu dacareeyo nafsiba dul yimi laysu dacareeyo nafsiba dul yimid doolarkii la gurayo aaway daraja boobkii dusha layska buuxsaday laysu dacareeyo nafsiba dul yimid laysu dacareeyo nafsiba dul yimid daad xaqii horkacayiyo dabayla la tegayo digni waxay u tahay dhaba mas-uulkii dambeeye darajiya xilqaade daad xaqii horkacayiyo dabayla la tegayo digni waxay u tahay dhaba mas-uulkii dambeeye darajiya xilqaade dowga wacanka leexda si dhaqsuu degaya dadweynaha mid kala xulan qof kastoo dareenkii dubaaqaaga taageli qof kastoo dareenkii dubaaqaaga taageli dowga wacanka leexda si dhaqsuu degaya dadweynaha mid kala xulan qof kastoo dareenkii dubaaqaaga taageli 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 milatariga muhiima gandamaadiya kasukuu ilaahay murugii awoodii ummata magan sidaasay kamiiranaitiya milatariga muhiima gandamaadiya milatariga muhiima gandamaadiya
إلهي مرقي أودي ومتمجل سداسي كميغنا إتيا يا سيال ممنو مرقي همي أمان كدل شو مليسنا مشار لامبا مور الياباني إيمانشو سوغونغا لنا ميليتري إيمان جاي سوغونغا لنا يا سيال مامانو ماراني همي إيمان كدل شو مليسنا مشار لامبا نور الياباني إيمانشو سوغونغا لنا ميليتري إيمان جاي سوغونغا لنا كديرسيو مسؤول داعتنا قدو داعتنا قدو ميكو عاسمي عروتي ونبردي إني ملكالي بيجي من الجريقة وروجينو كي كما مولو أربادا يهور مارك كديرسيو مسؤول داعتنا قدو داعتنا قدو كي أرانكاي مبايلا يو أمركي مديداي نمديدايو كي أرانكاي مبايلا يو أمركي مديداي نمديدايو كي أرانكاي مبايلا يو أمركي مديناي 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 نمديدايو